السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدبل إنسان علمانتين waxaan inoo soo socday casharkeenii basic forex ee taxana inoo ahaa. maanta waxaanu qaadan doonaa lesson 9. lesson waxaan ku baran doonaa sida MT4ka looga furo orders kala duwan. si guud MT4ku wuxuu leeyahay laba order. qayb waxaa la yiraahdaa market execution, waa order isla markaas suuqu qofku uu galayo ama traderka ama ha noqoto buy ama ha noqoto sell. waxaa la yiraahdaa instant market execution, يعني السوق markaas taagan inaad ku gasho buy ama sell. sidoo kale qaybta kale waxay noqonaysaa inaad ku gasho qaab loo yaqaano limit order ama pending order, يعني suuq waqti dambe furmi doono oo future ah. haddii in case uu soo gaaro trade-ka specified target, يعني meel cad oo muuqata ama zone hebel ku soo gaaro suuqa raacsi oo ugu dar, يعني waa trade qofku uu furayo kaasoo markaas aan active noqonaynin waqti xaadirkaas, laakiin noqon doono for future. waxaan fiirin doonaa marka theory yar, practical waan ku xijin doonaa insha Allah. sida hordhacna idin kugu sheegnayba waxaan maanta baran doonaa sida looga furo order ama orderada kala duwan laga furo forex-ka dhexdiisa, gaar ahaan application-ka MT4 markii lala isticmaalayo telefonka. uu ka yara duwan yahay markii lala isticmaalayo computerka. so casharkeena maanta wuxuu quseyn doonaa sida order looga furan lahayd telefonka. waana casharkii sagaalaad ee basic forex. casharkeena kan ka horreeyay waxaan kusoo baranay sida loo abuuro account demo ah ama loo set up gareeyo even midka real account ah. so marka realka iyo demahaba markii la furayo waa isku mid, the same scenario waxba kuma kala duwanaa, isku si bay u shaqeeyaan una furmaan. alright, waxaan marka fiirin doonaa order types in MT4 mobile, noocyada kala duwan ee orderada laga isticmaalo ama laga furo mobileka. okay, haddaba saad u bilaabato gelinta orderada ama ka trade gareynta, waxaad furi kartaa ama aad riixi kartaa taabka loo yaqaano quote tab. hore waxaan la soo degnay application MT4, waxaan ka soo degsanay telefonkeena, sawirku nagu jiraa. markaan furna kadib waxaan dooranaa marka taabka loo yaqaano quote. markii aad doorato quote tab, waxaad arkaysaa dhammaan lacagaha ugu jira brokerka ee loogu talagalay in suuqa laga shaqeeyo inta brokerkaas uu gal yahay. wixii ka maqanna waad ku soo darsan kartaa. horaan soo aragnay qaabka lagu soo darsado lacagaha kala duwan. markaad aragto lacagahaas mid ka ku falanqaysan ama aad rabto inaad ka tirada gareyso ayaad riixaysaa. waxaad ka sii dooran doontaa marka new order. waxaa ku soo bixi doona dialog box yar, waxaad ka dooran doontaa new order. waxaan aan sheegayo si practical ayaan arki doonaa waqtiga dhow. then waxaad dooran doontaa marka instrument orderka noocaad ka rabto. haddii aad rabto market execution oo si dhaqso ah, kan wuxuu ku yahay waa default, waad ku daynaysaa sidiisa. waa market execution markii aad rabto suuqa kale inaad gasho waqti xaadirkaas, aad ku gasho buy ama sell labadaba. waa maxaa loo yaqaanaa instant execution, yani si dhaqso ah ku gal suuqa ayaa la yiraahdaa. ama ma ahe waxaad dooran kartaa order kale ee loo yaqaano pending order. pending order isaguna waa order la furo kaasoo waqti xaadirkaas suuqa aan geli karin, laakiin ay tahay mustaqbal ama suuq ku dhow intrigiisii aan soo gaarin inaad sii hor dhacdo. soo marka pending order-kan asoo faahfaahsan sharaxi doonaa. waana suuq inta badan aan ahayn guaranteed, yani hubaal ma ahan. pending order waxaa laga yaabaa inuu kuu furmi waayo, laakiin market execution-ku waa for sure, waa hubaal. sidoo kale waxaa laga rabaa inaad specify gareyso ama aad caddeyso volume-ka aad gelayso. hore aan soo baran dhammaan volume-ka iyo wixii la halmaala. waxaad kaloo isticmaali doontaa oo aad arki doontaa stop loss iyo sida loo geliyo, take profit, then waxaad yani fulin doontaa orderkii. intaa marka hadda waa theory, laakiin waxaan arki doonaa iyadoo practical ah. okay,
penny orders aan kasoo sheekanay waxaan fiirinaa marka faa'iidooyinka uu leeyahay penny order iyo haddii in case wax risk ay ku jiraan. Penny ordersku barboska ama ujeedada laga leeyahay qofka traderka uu ka leeyahay waxay noqon kartaa waxay ku ogolaanayaan ama ay ku qarsiinayaan in trade-ka aad ka dhigato mid automate ah, yani mid isku furaya automatic adigoo markaas ku set gareynaya price alle price-ka aad rabto. waan arki doonaa si practical ah qaybta marka ee penny order-ka waa ordero qofku uu dhiganayo xilliga uu janiska hayo because waxa laga yaabaa suuqa imaanaya inaad yani u baahan inaad sugto kale waqti dheer kugu qaadan lahaa. inta marka aad horfadhin lahayd shaashada dan waxaad go'aaminaysaa suuqan waxaa laga yaabaa inuu soo gaaro halka kan dan waxaa sameynaysaa loo yaqaan penny order, yani halka ii sii dhig suuqa haddii in case halkan uu soo gaaro waan ku jira, haddii uu soo gaari wayna qayb kama yihiin. midda kale wuxuu sameynayaa penny order waxa loo yaqaan trigger waxa lagula jeedaa penny orderku markuu noqdo ama markuu soo gaaro price-kii ama post-kii aad dhigatay wuxuu noqonayaa marka mid activated ama active ama shaqeynaya markuu suuqa uu soo gaaro levelkii aad adigu dhigatay ama aad ugu talagashay markuu soo gaaro wuxuu noqonayaa activated ama markuu soo trigger garay uu soo gaaro. waan arki doonaa si practical faa'iidadu leeyahay marka penny orderka waxaa ka mid oo kale waxay ku soo bandhigayaan marka hore waa time saving, yani waxa kugu badbaadaya waqtiga. sidoo kale wuxuu u fiican yahay traderada kuwaasoo inta badan si joogta ah aanan u kormeeri karin suuqa wuxuu rabaa mar walba qofku inuu indhaha ku hayo inuu kormeero. haddii marka aad tahay in case qof busy badan waxa yani aad kugu habboon oo suitable kugu inaad isticmaasho penny orderska. riskigu leeyahay maxay tahay? riskigu jiraa marka la fiiriyo penny order riskiga ka iman kara wuxuu marka inta badan traderada isticmaala penny orderska waxay u nugul yihiin inuu ku dhaco waxa loo yaqaano slippage because asagoo suuqa kama rahayo waxaa markaa laga yaabaa in suuqa inuu ku soo yimaado inuu galo xaalad volatility ah marka saas daraadeed ma ka istaagi karo orderkiisii uu dhigan yahay. marka haddii uu yimaado volatility uu slippage u dhaco suuqa uu bedesho jihadiisii qofka marka isaga warba kama hayo traderkii isagana wuxuu noqon doonaa activate then waxa marka laga halka inuu ku galo khasaaro halka qofka aan dhigan penny orderkana uu macnaha ka istaagi karo markuu dareemo xaaladaas oo kale. okay marka qaybta waxaan ku faahfaahin doonaa noocyada kala duwan ee loo yaqaano penny orderska. waxay u kala baxaan afartan nooc, laba nooc oo kala ah buy limit iyo buy stop iyo laba kale oo ah sell limit iyo sell stop. haddaba waa shax waxaan fiirin doonaa sida u shaqeeyaan halka uu qofka traderka uu dhigan karo. okay waxa u horeeya buy limit xagee marka la dhigtaa buy waan dareemi karnaa waa yani suuq laga rabo in kor loo raaco ama uptrend ah oo buy ah sida yani ay cadeynayso falaartaba. xagee marka la dhiganayo marka orderka isaga marka waxaa la dhiganayaa meesha suuq marka uu joogo meel ka hoose ayaa waxaa la dhiganayaa orderka waa buy limit. haddana marka current price-ku wuxuu taagan yahay halka kan meesha yani dhibicda buluuga waxa taagan waa current price. marka xagee marka suuq raba inaan ka galno waxaan rabaa inaan ka galno halka hoose ee greenka ah. suuq qadar wuxuu marayaa halka buluuga ah laakiin anagu waxa inoo qorsheysan oo aan daraasaynay suuqa inuu soo gaaray halka sabadka ah dan uu aadi doono jihada kore. marka waxaan sameynaynaa halka markaan joogno waxaan diyaarsanaynaa orderkeena loo yaqaano buy limit order halka ayaan sii dhigan doonaa. haddii marka halkan suuq uu yimaado si automatic ah isaga ayaa marka isaga dhigay active uma baahan inaad sii sugto. haddii marka in case halkan markuu soo gaaro yani uu soo taaban waayo halkaas meel dhexe uu ka laabto iska baxona orderkaadii halkiisa ayuu ku oli doonaa ma furmi doono taasoo ka dhigan mana aadan ku khasaarin orderkii mana aadan ku faa'iidin. laakiin haddii uu kuu furo uu soo gaaro zoonkii aad saadaashatay uu kuu furi doono adigoo aadan ka warhaynin dan wuxuu marka uu sameyn doonaa faa'iido. nooc marka waxaa loo yaqaanaa buy limit wuxuu ka furmaa ka hoose meesha uu joogo price-ka. okay buy stop
isaguna waxaa la dhigtaa meesha suuqa uu marayo meel ka horeyso. For example, haddeer halkan buluuga waxaa marayo current price-kii waa qiimaha hadda suuqa uu joogo. So marka traderku wuxuu saadaaliyey suuqa kan hoos yani ma sii aadi doono, wuu soo laaban doonaa. Saas daraadeed marka waxaan dhigan doonaa yani above 10 or 20 pips ayaan dhigan doonaa. Marka halkan wuxuu dhigtay orderkiisii. haddii marka suuqa uu noqdo sida asaga uu saadaaliyo kor uu soo aado, waxaa dhici kara in markaas suuqa kan uu noqdo mid markaa uu ku daro. haddii in case uu kor aadi waayo suuqu hooskiisu iska soo socdana, no problem, isagu active ma ahan. saas daraadeed kuma ahan faa'iido iyo khasaaro midna ma ahan. orderka saddexaad wuxuu noqon doonaa waa sell limit. sell limitku markaa wuxuu u dhigmaa sida buy limitka oo kale. isaguna waa order qofku uu dhiganayo meel ka kore meesha uu hadda uu marayo price-ka. current price-ka ee sell hadda wuxuu tahay halkaa isaga ah. then traderku wuxuu saadaaliyey suuqa markuu halkaa kore u gaaro resistance-ga ah inuu soo laaban doono. then orderkiisii wuxuu dhigan doonaa markuu orderka uu dhiganayo suuqa wuxuu taagan yahay halkanna waa saadaalin, waa inuu gaari doono in kale ayuu saadaaliyey. haddii marka ay dhacdo inuu gaaro, tradekiisu active. hadduusan gaarinna waxba shaqo kuma lahan. okay, sell stop wuxuu ka hooseeya ama la dhigaa meel ka hooseysa price-ka. hadda current price-ku halkaas. then wuxuu saadaaliyey traderku in suuqu hoos uu soo aadi doono. then marka wuxuu dhiganayaa orderkiisii meel ka hoose meesha hadda uu taagan yahay price-ka. taasoo ka dhigan haddii price-ku hoos uu soo aado waa sida uu rabay oo active. hadduu soo aadina no problem, waxba khasaar kuma hayso. marka these four types of penny orders-ka ayaa waxaa loo isticmaalaa inta badan MT4-ka, waxaana aad u isticmaala dadka traderada ah kuwaasoo inta badan waqtigu ciriiri uu ku yahay. waxay sameynayaan marka forecasting iyo prediction ay ku sameynayaan price-ka suuqa. inta badan waxay fiiriyaan marka zoneska oo support zone-ka iyo resistance zoneska ay fiirinayaan. marka waan arki doonaa si practical ah. hadda for example haddii hal mar aan fiiriyo kale suuqan oo kale kan marka now haddii marka aan rabo for example inaan dhigto iska istaan horizontal kan suuqan for example waa buy oo kale. haddaan rabo inaan dhigto buy stop oo kale, waxaan dhigan karaa halkaas oo kale. waxaan dhihi karaa haddii suuqu uu soo gaaro zone-kan lacagta waa USD. haddii suuqu uu soo gaaro 1.16 then igu dar buy-gii waxaan rabaa in halkan kasii buy gareeyo. halkan waxaan dhigan doonaa buy stop. okay, buy stop. buy stop maxay tahay? haddii suuq hadda waa sell, haddii sellkii suuqu iska soo wato iska soo socdo no problem, ana shaqo kuma leh. haddii sellku uu soo socdo ima saameynayo, yani trade-ka kan active ma noqon doono. laakiin haddii suuqu uu laabto yani jahaas kale uu aado, waxay ka dhigan tahay marka orderka inuu furi doono. then halkaas ayaa marka anigu ka raaci doonaa. buy limitna waxay tahay sidoo kale haddii aan sida suuqa kan waxaa laga yaabaa halkaas inuu ii soo gaaro kale ay ila noqoto prediction-kii. okay, inii marka waxaa ii furan nama ii yaallo wax loo yaqaano buy limit, taasoo ka dhigan haddii suuqu uu soo gaaro this zone uu ii furmi doonaa. marka hadduu soo gaarin dhex uu ka laabtana anuu shaqo kuma lihi. sellku waa lamid kan haddaan isticmaalno. haddii halka aan soo dhigano waxay ka dhigan tahay marka waa sell stop. marka halka uu soo gaaro ayuu raacsin doonaa. haddii aan rabno sell limit halkaas ayaan dhigan doonaa. haddii uu suuqu laabto halka uu gaaro ayuu waxaa ii furmi doonaa sellkeygii. marka qaabka ayuu u shaqeeyaa suuqa kan. marka waa end halkaas ayuu ku egaa casharkeennii. isagoo marka practical waxaan ku firin doonaa qaybteena mobileka MT4-ka.